Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada saaxiibayaal, waa mar kale iyo muuqaal kale. Muuqaalkanan maanta wuxuu ku saabsan yahay maalin dhaweyd ayaa waxaan soo dhigay qaybta iyo community tabka ee kanaalkeenan su'aalo soo weydii. Haddaba dad badan ayaa su'aalo soo weydiiyey, markaas su-aashii ugu fara badnayd ee hadda la soo weydiiyo waa tan. Su-aashaasi waxay tahay sidee baan subscribe badan ku heli karaa dhanka YouTube-ka waa meesha uu adag isleeyahay hadda si fudud ayaa lagu heli karaa dad badan walba dadaalkaaga may kugu xiran tahay. Marka YouTube-ka haddaad ka soo gasho oo muuqaal iska soo geliso iska dayso views-ka xalay kaga seexatay ama laga yaabo intaad kaga tagtay ugu soo laabanaysa ama subscribe-ta ama views-ka intaad kaga tagtay moodan ugu soo laabanaysa ciladaas. Application-ada kulama wadaagayo oo intaad hal mar saa u geliso aad subscribe badan aad ku helaysid, balse talooyin muhiim ayaan ku siinayaa oo hadda aad subscribe badan ama kanaalkaaga aad ku kobcin karto ayaan ku siinayaa. Haddaba hadday tahay markii ugu horeysa aad soo booqatay kanaalkan, fadlan subscribe star, notification-kana furo si muuqaal walba cusub kugu soo dhaco. Sidoo kale muuqaalkan like saar si uu gaaro dad fara badan. Aad iyo aad baad mahadsan tahay. U soo dhawaada muuqaalka faahfaahsan. Dan muuqaalkan hore golle midda koowaad hadda isleeyahay kanaalkaaga ood ku horumarin kartaa waa inaad u sameysaa akoonno kale oo ama Facebook ha ahaado ama Twitter ha ahaado ama aad meel kale ha ahaado. Tusaale ahaan Facebook hadda soo galo kanaalka farsamo technology hadda wuxuu leeyahay akoon kale oo dhanka Facebook ah, laga yaabo in dadka iga soo raaceen halkan. Marka halkan waxaan isleeyahay waa meesha koowaad aad haddaad sameysato ay dadka soo raaci karaan. YouTube-ka intaad hal mar furato akoon aad faraha ka qaadad kuma soo raacin, laakiin akoonno kale inaad sameysaa. Sidoo kale TikTok sidoo kale hadda uu iga furan yahay aniga. TikTok-na waa kana TikTok-na waa ii furan yahay oo isagana dad ayaga soo raaca. Marka waa sidaas oo qaybta koowaad talada koowaad aan ku siinayo waa midaas. Talada kale labaad waxa weeyaan inaad muuqaaladaada aad thumbnail-ka aad iska saxdo oo dad thumbnail ama muuqaalka sad ku soo galaysa aad ku dayso ama thumbnail-ka foolxun aad saarto aan qurux badnayn qofkaas inuu san daawanay ayaa laga yaabaa muuqaalkaas. Marka inaad iska hagaajin karto isku day thumbnail-ka oo thumbnail-kaaga dad qurxoon dad badan ayaa ku soo raacay. Qofka markuu sida taabo oo arko wuu ku soo raacaya oo thumbnail-ka haduu ka helo kaliya wax kalena waa iska caadi wuu ku soo raacaya. Ugu horreyn inuu dadka horta qofku inuu soo furo muuqaalkaaga ayaa ka horeysa. Talada saddexaad aan u gudubno midda saddexaad aan isleeyahay kanaalkaaga isaguna uu ku horumari karaa waa inaad muuqaaladaada aad ku darto tags. Haddaan hadda muuqaalkaygan soo furo tags ayaan ku daray. Marka tagskaasna markii YouTube-ka laga soo raadiyo ayaa laga dhexlayaa oo qaybta kore ayuu soo marayaa oo qofku markuu wuxuu u baahan yahay uu ku soo qoro muuqaalkaaga ayaa ugu soo horeynaya. Aniga haatan muuqaalkan waxaas oo tags ayaan ku daray. Muuqaalku wuxuu ku saabsanaa sida sawiraanta loo qurxiyo ama sawirkaaga aad u qurxisan karto Lightroom. Marka waxaan oo tags ayaan ku daray markaas sida loo qurxiyo sawiraanta, sida loogu qurxiyo sawir aduudi waxyaabo badan ayaad ku daraysaa. Talada saddexaad aan ku siin karno waa waxaan isleeyahay inaad muuqaaladaada tags aad ku darto. qaabab kale oo badanna way jiraan oo markaas aad ku horumarin karto kanaalkaaga. Markaas inta ugu muhiimsan waa intaas. Haddaad u baahan tahay inaad tagska qof kale u isticmaalo inaad isticmaasho application-o kale oo lagu fiiriyana way jiraan oo haddaad iga Play Store-ka soo gasho kadibna aad qaybta searching-ka ku qorto tags YouTube Pro tags haddaad ku qorto halkan kuwa badan ayaa ku jira, balse application-ka aan hadda isleeyahay wuu fiican yahay oo tagska qof qolal uu isticmaalay ayaad ku fiirin kartaa. Aniga hadda marka qaarkood aan adeegsado waa midkaan. Marka waa application fiican oo qofka kale tagska uu adeegsaday oo muuqaalkiisa ku daray ayaan baad ku fiirinaysaa oo intaad soo copy garayso linkiga muuqaalkaas intaad soo copy garayso ayaad qaybtan enter your video URL ay ku qoran tahay ayaad ku baasti garaynaysaa. Kadibna wuxuu ku daray ayaa qaybtan hoose kaaga soo baxaya sida haddaba sawirkan uga jeedaan. Qaybtaas ayuu kugu soo taxayaa waxa uu ku daray. Copy all-na waad dhihi kartaa oo dad copy garaysataadna muuqaalkaaga waad ku darsan kartaa. marka qof kale taagis ku isticmaalanaysa taayid ku fiirin kartaa
marka qaabab kalena way jiraan oo akoonno kale aad samaysanayso. marka talooyinka muhiimka aan hadda is leeyahay kanaalkaaga waad ku horumarin kartaa waa midaas. marka muuqaaladadan inaad daa'imiso maalin walba muuqaal soo geliso ama weegiiba inaa horta lagugu barto oo haddaad bil intaad soo gelisaa iska dhaafto haddana mid kale aad soo geliso saas ma fiicna. laakiin kanaalka waa in lagugu arko oo ama haddaad awoodo inaad maalin walba muuqaal soo geliso ama isbuuciiba inaad hal muuqaal soo geliso. haddaba waxaan is leeyahay talooyin muhiim ayaan hadda ku siiyey oo haddaad ku dhaaqdo kanaalkaaga uu kugu horumari karo. haddaba intaas ayaan maanta idin jeclaystay in la wadaago. fadlan hadday tamarkii horeysa aad soo booqato kanaalkan subscribe saar notification-kana furo si muuqaal walba cusub kugu soo dhaco. sidoo kale muuqaalkan like saar si uu gaaro dad fara badan. aad iyo aad baad mahadsantahay intaan muuqaalkan iyo muuqaalka xigaan kaga kulmayno. waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.